بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. intaas kadib waxaan rabaa inaan clipkan gaaban oo runtaan ugu talagalay wacyigelin iyo fakir anigoo ah citizen Soomaali ah, dadka caadiga ah oo Soomaalida ah, ku hadlayo magaca dawladeed, ku hadlayo magacyada kale oo kuwa la boobay iyo kuwa xaqiiqa ah dadku leeyihiin midna ku hadli maayo. Waxaan ku hadlahayaa shacabka Soomaaliyeed oo istaahila inay ku noolaadaan nabad, sharaf, qiimo, qadarin, kala dambeyn, dawladnimo, diin ay ku dhasheen boqolkiiba boqol ay yihiin dadkaas oo samaha jecel oo wax kasta oo burbur ah ama Soomaalinimada iyo wadaniyada Soomaalida iyo akhlaaqda iyo wada jirka burburinayana ka soo horjeeda. Dadka noocaas ah fikirkooda aan ku hadlaaya ayaa wax rabaa inaan iraahdo laba kalmood aan ka iraahdo inaan halka badiyo ma rabo 10 daqiiqo ugu badnaan inuu ka bato ma rabo clipkan si loo dhageysto maadaama aan ugu talagalay wacyigelin 12 bishan ilaa 12 waxaa ka socday magaalada Dhuusamareeb oo ah magaalada madaxda Galmudug, magaalada noocaas ah Galmudug, Puntland, Somaliland, Jubaland, South West waa la aqbalay, Soomaalidu waa aqbashay magacaas waa la qaatay. Marka waxaba hadda waxaan ka hadlaynaa ma aha magaalada noocaas ah ka maahan dhugmaanta clipkan uma talagelin, laakiin magaaladaas Dhuusamareeb ismaamulka Galmudug dawladda ama dawlad goboleedka Puntland Galmudug ayaa wax martigelisay madaxweynayaashii shanta ahaa oo Soomaaliya oo ka tirsanaa dawladda federaalka ah. waa doodoodii waxaa ka soo baxday go'aan baa laga soo saaray. go'aankaas waxaa ugu mug weynaa inaan la aqbali karin, aan lana qaban karinin doorasho qof iyo cod ah, inaan la qaban karin. maxay u diidan yihiin doorasho qof iyo cod ah madaxweynayaasha goboladu? ma isweydiisay haddaad Soomaali tahay maxay rabaan? why ay cilad ugu arkaan in Soomaaliya dadka degan ilaa magaala madax tuulo magaalo dhexe you name inta amnigu ka jiro oo ay dhici karto in doorasho laga sameeyo, in Soomaali wax la weydiiyo oo la yiraahdo yaa idin maamula, yaad rabtaan inaad ka dhigataan baarlamaanka soo socda oo 11aad ama baarlamaanka markaad doorataan yaad rabtaan inuu madaxweyne Soomaaliya ka noqdo oo sharaf iyo dawladnimo iyo akhlaaq iyo awood aad ku tuhmaysaan. Soomaali in la weydiiyo maxaa lagu diidan yahay? maxay ku diidan yihiin dawlad goboleedyadu? Soomaalidu waa inay fahanto wax ku diidan yihiin. waxaa la yiri dawaco meeshay bari idaad ku barato ama macal ama bari ka doonto badhay koosh ku barato iyo ku baqtidaa. dhowr iyo 10 sano 20 sano ku dhawaad yaa Soomaaliya waxa lagu soo waday inkastoo meel xun laga keenay burbur iyo isdil iyo qabyaalad iyo dal burburin iyo xumaan laga keenay oo maalinba ay meel joogtay misana rag bay ugu badisay 20 sano u dambeysay meesha Soomaaliya maraysay inuu asagu inta Soomaali gacanta gasho tuulada oo degan yahay gacanta galiyo oo soo socdo dad soo socdo oo yiraahdo hebel iyo hebel iyo hebel baa
iyo dooranaya baarlamaanka ninka soo socda ama ninku doono uu soo qabsado tuulada ka soo qabsado magaalada dhexe ka soo qabsado meelaha ka soo qabsado inuu asagu niman soo hayo jarkiisa jar inuu socdo isagu uu leeyahay danta ku jirta oo ka dambaysa dowlad goboleedyadu inay diidaan doorasho xor ah oo xalaal ah oo Soomaali wax la weydiiyo kan hilibka qala iyo kan adima saasay rabanayo sababta magacyo isticmaalaan baa jira magacaasi aaminsan yihiin dhamaantood ayagoo magaca aaminsan in dadka wax la weydiiyo qofku doona ha noqdee khamraysta wax la weydiiyo kan hilibka jajar la weydiiyo kan adimiga sheekha wax la weydiiyo ganacsadaha sharafta la weydiiyo qabyaalaystaha Soomaalida la weydiiyo ayagoo dadkii Soomaaliya isku dhex jiray isku duuban bay waxay ka shakisayeen oo ka baqahayaan inay u socon weydo meeshay gacanta gelin jireen kuma kalsoona wixii hore rabaan marka inay u socaan bay rabaan inay inta ulsaar bay rabaan waxa la yiraahdo ninka baadiyaha diga yaqaana dad xero hor istaagtid subaxda ay sayid inta ul qaadatid inay idaha tirisid kow labo saddex afar shan lix ina tira ila boqol wadid kad tira idaha leedahay ulsaar bay rabaan waxay rabaan inay Soomaaliyeed ulsaaraan intay doonaan socdaano dowlad goboleed kasta inta rag soo socdo soo ulsaaro oo Soomaali maamulo oo hadhow danihiisa ka dhaxarko rabaa oo kii raba inuu Imaaraadka u aado kii Ethiopia ku daamaan jir ku daabnaado kii Soomaali inuu burburiyo oo dekeeyada bixiyo rag halkaas loo socdaa waana wax sida xaqiiqda marka la sheego dad badan oo Soomaali ah u muuqda oo aan ka qarsoonayn laakiin inay sheegaan ma ogol badankooda Soomaali waxaan sheegaynaa inay toosto Soomaali inay toosto oo ay hadlaan oo media ka hadlaan oo magaalooyinka ay degan yihiin ka hadlaan oo codkooda muujiyaan oo ay dad active oo nool oo madax furan noqdaan oo waxa ay rabaan sheegi karaan inaan maalin kasta lagu takafarin inuu tan meel u fariisto ul saarto oo ragga asagu uu rabo iyo dadka iyo gabdhaha uu rabo inta soo socdo Soomaali ka soo soco dowlad goboleed kasta koox asagu uu leeyahay oo ulsaar ah oo jar ah oo soo socday uu keeno oo Soomaali ku soo daro hadhowna nin kasta mid la soo istaago inuu xargaha Soomaali jaro xumaanta Soomaali ka shaqeeyo fool xumo maalin kasta ay meesha ka sheegaan ayuu ana wada dhahay dhamaantood taasi u badan yihiin kuwii la soo dhaafay tobnaad iyo kuwii sagaalaad ka soo horeeyay rag badan oo fiican ku jireen misana dowlad goboleed waxay rabtaa inay soo soocaan ayagu qofka baarlamaanka Soomaaliya ku biiraya rabaan taas waa qodob waxa ayadana in la isweydiiyo Soomaaliya isweydiiso u baahan madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo khayr iyo dowladdu federaalku waxay aad ugu celcelin jireen awoodii shacabka celinayna u soo celinayna waxaan rabnaa Soomaalidu inay qofka ay rabaan doortaan ayaan rabnaa arrintaas aad ugu celiyeen oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed aad ugu faraxsanaayeen kalsoonida inta hal inay Soomaaliyeed wax weydiiyaan ay hamigoodu gaarsiiyo in Soomaali doorato maxay ku gaareen maxay see ugu qaraceen maxay rabaan ma waxay rabaan inay Soomaali tusaan 4 sano aan joognay deyntii baa la cafiyay ciidankii baan dhisnay taalooyinkii baan taagnay taalooyin Soomaalidu ay jeceshahay qaarkood jecel yihiin baan taagnay tiyaatarkii baan furnay malcabkii lagu ciyaari jiray kubadii baan xaaqnay intaas miyay rabaan inay Soomaali ku maamulaan oo ay ku helaan dadka samaha jecel oo dhan fikirkiisa iyo codkiisa inay ku helaan inta miyay rabaan wax kala waxba u dambeeya oo iswali soo bandhigin ayadana in la fahmo loo baahan yahay hal badan baa isku dhex duuban wax fiican bay qabteen wax weyn bay qabteen dowladii soo 20 sano soo u dambeysay isdaba socday waxa la dhihi karaa runtii dowladii waxa qabadkeedu muuqday oo ugu muuqaal badneed bay tahay mid kasta waxbay soo qabatay dowladda waxa ugu dadhay xilligeedii bay joogtay burburkay ka sii xigeen dowladda burburka uga dhaweyd waa ka sii qaab darreed waa ka sii falxumay waxaana keenaysa cilada keenaysa waxa weeye xilligii burburkii ayay xigtay dowladdan waxa la dhihi karaa noocan ma wax qabad ayaa muuqday marka
inay Soomaali kalsooni intaa la ka helaan oo ay yiraahdaan qof iyo cod baan u soo taagayna Soomaali qofka doonta ha doorato dowlad goboleedyada ay baqaan oo mid kasta meel ka boodo yiraahdo may macquul maaha dadkaygan kaasana waa soo socayna waxaad moodaa arrin si fiican looga fikir u baahan ay tahay oo la isweydiiyo nimanka hadda jooga waa macquul laakiin intaa ka badan ayaa laga rabaa intaa ka badan ayay Soomaali oo majority-ga dhalinyaro u badan fikirkooda ku soo jeedan karaan inay dib u doortaan ama ayagoo kala doortaan wax qabad hufnaan qabyaaladda iyo nin jacaylsiga iyo garabka wali Soomaaliya ka socda oo la suuliyo la yareeyo waxyaalahaas oo dhan baa u yaala dowladda shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba inay hadlaan oo ay Soomaaliya ayaga leh qofka maamulahaya oo Soomaaliya madaxda ka noqonaya iyo midka baarlamaanka u noqonaya iyo ka wasiir u noqonayaba qofka ku jira maadaama hadda ay tuulooyin iyo degmooyin wax ku qaybsanayaan ama qabiil ku qaybsanayaan oo Soomaali waa qabiilo isu tagay ay qabiil ku qaybsanayaan qabiil kasta waa is yaqaanayaan tafiiriyo inaan nin kale dhabarka ka taaban oo soocanine ayagu waa yaqaan magaalada ay degan yihiin dadka ugu sharafta badan ninka ugu fiican gabadha ugu hufan dadka Soomaali danaheeda iyo wanaageeda xalaaleeda jecel waa yaqaanaane inay soo doortaan dadkaasna safka hore keenaan qayb ka noqonaysa Soomaaliya inay soo noqoto oo hagaagto qayb ka noqonaysa Soomaaliya nabadeedii iyo karaamadeedii inay soo ceshato qayb ka noqonaysa Soomaaliya macdanteeda iyo gaaska iyo batroolkeeda ka buuxa iyo waxyaalaha alla ku manaystay in la soo saarto oo la iimaansado bay qayb ka noqonaysaa markii Soomaalidu ay garato qofka wuxuu dhiibanayaan inay hubiyaan oo fiiriyaan oo aan nin kale inta ama lacag siiyo ama awood ku muquuniyo been u sheego inuu ulsaar sameeyo oo dad ka soocanin isagu uu rabo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.